kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qaayaha leh ee ku xiran San Cable TV waa markale iyo muuqaal cusub. muuqaalkeena maantana waxaan ku qaadaa dhigi doonaa hadii ay baweyni karaale noqdo marxaladihii isaameyntii bam atomic. fadlan hadii muuqaalkan aad ka heshay ama uu ku xiiso galiyay waxaanu ka codsanaynaa inaad like saarto siina share gareyso lana sii wadaagto asxaabtaada si ay ugu helaan macluumaad laag inta aad ka heshay. waad ku mahadsan tahay. bambooyinka nukliyeerka ayaa hubka halis ah iyadoo la adeegsanayo falcelinta nukliyeerka intay tahay isha tamarta ee qaraxa. saynisyahano ayaa soo saaray tiknoolajiyada hubka nukliyeerka markii u horeysay xilligii dagaalkii labaad ee dunida. bam atomic waxaa la dagaalka loo adeegsaday 2 jeer oo kaliya. labada jeerna Mareykanku wuxuu kaga hortagay Japan oo uu ku duqeeyay 2 magaalo Hiroshima iyo Nagasaki dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. dagaalkaas waxaa xigay muddo faafin nukliyeer ah intii lagu guda jiray dagaalkii qabooba. Mareykanka iyo Midowgii Soviet waxay ku tartameen sareynta hubka nukliyeerka, bambaanooyinka nukliyeerka iyo bambaanooyinka hidrojiinada. wuxuuna markii u horeysay suurtageliyay maba atomiga markii fiisikistaanadii nukliyeerka oo tahan Lisa Martin iyo wiliba Fried ay heleen shaybaar nukliyeer oo ku yaal Berlin ee Jarmalka 1938. marka atom aalada shucaaca loo qaybiyo aalad fudud waxaa si kadis ah oo xoog leh u sii daynaya tamar. soo helitaanka kala baxa nukliyeerka ayaa furtay suurtagalnimada tiknoolajiyada nukliyeerka oo ay ku jiraan hubka. bam atomic waa hub ka soo baxay tamar falcelin kala bax. hubka thermonuclear ama bambaanooyinka hidrojiinada waxay ku tiirsan yihiin isku dar kala go'ida nukliyeerka iyo wiliba isku dhafka nukliyeerka. mashruuca maldahan wuxuu jawaab u ahaa welwelka laga qabo dadka Mareykanka ee saadaalinayay in saynisyahano Jarmal ay ka shaqeynayaan hub adeegsiga tiknoolajiyada nukliyeerka ilaa 1950. bishii December 28, 1942 madaxweyne Franklin wuxuu ogolaaday bilowgii mashruuca maldahan kaasi oo kulmiyay saynisyahano kala duwan iyo saraakiil ciidan oo ka shaqeynaya cilmi baarista nukliyeerka. shaqada inteeda badan mashruuca maldahan ee Los Alamos ee New Mexico waxaa lagu sameeyay kormeerida fiisikiska cilmiga kaasi oo uu aasay saynisyahanka loo yaqaan J.J. Robert iyagoona ugu yeeraan in uu yahay aabihii bam atomiga. bamkii ugu horeeyay atomic ayaa si guul leh loogu qarxiyay bishii Luulyo 16, 1945 meel cidla oo ka fog oo u dhow Alamogordo ee New Mexico. bamku wuxuu tagay daruur aad u baaxad weyn oo dhererkeedu dhan yahay 40,000 oo feet waxayna muujinaysay imaatinka da'da atomiga. imtixaankan waxaa loo yaqaanay baaritaankii midnimada qaraxyadii Hiroshima iyo Nagasaki markay ahayd 1945. saynisyahanada Mareykanka oo ku sugnaa Los Alamos waxay soo saareen 2 nooc oo bam atomic midka koowaad waa naqshad ku saleysan uranium waxaan loo yaqiinay wiilkii yaraa. midka kalena waxaa saldhig u ahaa plutonium waxayna u yeeraan ninkii buurnaa. inkastoo uu dagaalku ka socday Yurub u dhamaaday bishii Abriil, haddana dagaalka ka socday badweynta Pacifiga wuxuu u dhaxeeyay ciidamadii Japan iyo kuwa Mareykanka. dabayaaqadii bishii Luulyo madaxweyne Harry wuxuu ku baaqay isdhiibitaan Japan wiliba baaq loogu wanqalay Potsdam. bayaankan ayaa lagu ballan qaaday in si degdeg gabi ahaanba loo burburin doono haddii Japan aysan isdhiibin. Japan way diiday in ay ka jawaabto bayaankan Potsdam. bishii Agoosto 6, 1945 Mareykanku wuxuu bamkii ugu horeeyay atomic ku tuuray bam gacmeed B-29 magaalada Hiroshima ee Japan. atomigii uraniumka ama wiilkii yaraa wuxuu ku qarxay qiyaastii 13 kiilo oo tamar isagoona dejiyay ama burburiyay meel 5 mayl oo 2 jibaaran u jirta magaalada. isla markaana ay ku dhinteen 80,000 oo qof. isla markiiba 10,000 ayaa ku dhimatay shucaaca atomigaas ka dhashay. waxay noqotay wixii uu Mareykanka filayay. kii labaadna 3 maalmood kadib wuxuu ku tuuray
bamkii labaad ee atomic ee plutonium ama ninkii burnaa wuxuu isla markiiba dilay dad lagu qiyaaso 40,000. xaqiiqdii Nagasaki ma ahayn bartilmaameedka koowaad ee bamka labaad. diyaaradaha wax duqeeya ee Mareykanka ayaa markii hore bartilmaameedsaday magaalada Kakura, halkaas oo ay ku til mid ka mid ah warshadaha ugu weyn ee sanada militariga, balse qiiqa ka dhashay duqeymaha ololaya diyaaradaha Mareykankuna waxay u jihaysteen bartilmaameed labaad ee Nagasaki, isaga oo ku sifaynayay awoodda wax baabi'inaysa ee gubaysa dalkaasi oo ahaa qarax cusub oo naxariis darro ah, taasi oo soo afjartay dagaalkii labaad ee dunida. dhowrkii sano ee ka dambeeyay dagaalkii qabooba, Mareykanku wuxuu ahaa wadanka kaliya ee adduunka haysta hubka nukliyeerka, halka Sofiyeetiga ay ka maqnaayeen aqoon iyo agab ceyriin oo lagu dhiso madaxyada nukliyeerka. balse dhowr sano gudahood, iyaga oo loo marayo shabakadaha basaasnimada iyo howlaha basaasnimada caalamiga ah, Sofiyeetiga ayaa awooday inay helaan naqshado ku saabsan sida loo abuuro iyo soo saarista tamarta nukliyeerka, iyadoo sidoo kale in ay soo ogaadeen ilaha uraniumka ee bariga Yurub. Agoosto 29, 1949 Sofiyeetiga ayaa tijaabiyay bamkii ugu horeeyay ee nukliyeer. Mareykanka wuxuu kaga jawaabay in ay bilaabeen barnaamijka cusub oo lagu horumarinayo bamka nukliyeerka ee aadka u horumarsan sanadkii 1950. tartanka hubka ayaa bilaabmay. tijaabinta iyo weliba baaritaanada nukliyeerka ayaa noqday ujeedooyinka koowaad ee dalal badan, gaar ahaan Mareykanka iyo midowgii Sofiyeetiga. dhibaatada kantaalaha Kuuba tobaneeyada sano ee soo socda, awood kasta oo adduunkan ka jirta ayaa keedin doonta 10,000 oo madaxyo nukliyeer ah. wadamada kale sida Ingiriiska, Faransiiska iyo Shiinaha ayaa sidoo kale soo saaray hubka nukliyeerka xilligaas. falanqeeyaasha in badan waxay u muuqatay adduunkan in uu qarka u saaran yahay dagaalkii nukliyeerka. bishii Oktoobar 1962 markii midowgii Sofiyeetiku rakibay Kuuba kantaal nukliyeer ah oo ku hubaysan kaliya 90 meel ayuu u jiray xeebaha Mareykanka. tani waxay horseeday 13 maalmood oo iska hor imaad military iyo mid siyaasadeed ah oo loo yaqaan xasaaradda kantaalada Kuuba. madaxweyne John F. Kennedy wuxuu xayiraad ku soo rogay badda agagaarka Kuuba, wuxuuna cadeeyay in Mareykanka uu diyaar u yahay in uu adeegsado awood military haddii loo baahdo. balse musiibada nukliyeerka ayaa la baajiyay markii hogaamiyaashii Sofiyeetiga ninkii uu sameeyay dalab Mareykanka oo ogolaaday oo ah in la qaato kantaalada Kuuba si loogu bedelo ballanqaadkii Mareykanka ee ahaa in uusan duulaan ku qaadin Kuuba. 3 jasiiradood wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka iyo kadib tijaabadii ballaarinta hubka nukliyeerka ee baafinaysay in lagu guudo jiray 1940 ilaa 1950. inta badan Mareykanka ayaa ka walaacsanaa caafimaadka iyo saameynta deegaanka ee boorka nukliyeerka baabi'iyay. 1961 markii uu taagnaa dagaalkii qabooba, intii lagu guda jiray banaanbaxyadii loogu yaqiinay Women for Peace Streak bishii November 1961 oo ay si wada jir ah u abaabuleen dhaqdhaqaaqa beeli ilaa 50,000 oo haween ah oo ku sugnaa 60 magaalo oo ku kala yaala Mareykanka ayaa u soo baxay mudaharaad ka dhan ah hubka nukliyeerka. sanadihii 1970 ilaa 1980 oo ay socdeen mudaharaadyo heer sare ah oo looga soo horjeedo soo saarista hubka nukliyeerka. kadib dhacdadii jasiiradii 3 Mile isku darka nukliyeerka ee xarumaha tamarta ee Pennsylvania sanadihii 1979 ilaa 1962 1 milyan oo qof ayaa ku mudaharaaday magaalada New York. heshiiska nukliyeerka faafinta Mareykanka iyo midowgii Sofiyeeti ayaa horseeday gorgortan heshiis caalami ah oo lagu joojinayo faafitaanka hubka nukliyeerka sanadihii 1968 wuxuuna dhaqan galay 1970. heshiiskaasna waxaa lagu wanqalay loona soo gaabiyay NPT. 5 dawladeed ee hubka nukliyeerka lagu yaqiinay inay haystaan hubka nukliyeerka waqtigaas waxaa ka mid ahaa Mareykanka, midowgii Sofiyeetiga, Ingiriiska, Faransiiska iyo Shiinaha, iyadoo la raacayo heshiiska dawladaha hubka nukliyeerka haysta in aan la adeegsan lana caawin dawladaha aan nukliyeerka haysanin.
markii midowgii Sovieti uu burburay horaantii sagaashameeyadii kumanaan madaxyo nukliyeer ah ayaa ku kala fariiqsamay bariga Yurub, bartamaha Aasiya. qaar badan oo ka mid ahna waxaa laga helay Belarus, Kazakhstan iyo weliba Ukraine. hubkan waxaa dib loogu soo celiyay Ruushka 1974. Hindiya waxay noqotay dalkii ugu horeeyay ee ka madax bannaan heshiiska oo lagu tijaabiyo hub nukliyeer ah. waxaa ka mid ahaa Pakistan, waxayna lahayd barnaamij nukliyeer oo caan ah. Waqooyiga Kuuriya waxay markii hore saxiixday heshiiska nukliyeerka ee NPT, balse waxay ku dhawaaqday ka bixitaanka heshiiskaas 2003. Kuuriyada Waqooyi waxay tijaabisay 2 kantaal oo ku wareegda dheer ee iskaga gudba qaaradaha. September 2017 Kuuriya Waqooyi waxay sheegtay in ay tijaabinayso bam hydrogen ah oo la saari karo kantaal isagoona kala gooshi kara qaarad. inkastoo Iran ay saxiixday heshiiskii loogu wanqalay NPT, haddana waxay bilowday in ay soo saarto hubka nukliyeerka weliba waqti yar gudahood.